Assalaamu calaykum. Khabi ayaa qarka u saaran inuu noqdo qofka koowaad ee ugu taageerada badan nolosha TikTok. Majaajilistaha ugu caansan ee TikTok ayaa qarka u jira inuu ka hormaro gabadha ka horeysa iyadana ee TikTok isticmaasha ee kaalinta koowaad ku jirta. Waxa ay haystaa gabadhan lagu magacaabo Charli D'Amelio 141 milyan oo followers, halka Khabina uu isna haysto 140 milyan oo followers. Charli D'Amelio oo 80 jir ah ayaa markii ugu horeysay bilowday gelinta fiidiyowyada TikTok 2019, waxayna si dhaqsi ah ku heshay taageero aad u badan oo xawaare ku socday followerskeeda. Si kasta ha ahaatee, waxay u egtahay in Charli laga yaabo inay lumin doonto booskeeda koowaad mar dhow, waxaana midaas u hambalyeynayaa hal-abuuraha majaajilistaha ah ee Khaby Lame ee xawaaraha ku socda. Khaby wuxuu caan ku yahay muuqaalada majaajilada ah ee aan ereyada lahayn, isagoo ku jeesjeesaya qaar ka mid ah muuqaalada internetka ee ugu yaabka badan. Dadaalkiisana wuxuu ku kalifay inuu noqdo abuuraha labaad ee loogu followers badan yahay TikTok. Daawadayaashu waxay sugayaan labadan qof ee ugu taageerada badan TikTok, laakiin qaar ka mid ah taageerayaasha Khaby Lame ayaa bilaabay olole hashtag ah oo ay doonayaan in uu kaalinta koowaad ka galo. Waxa uu hashtag-gan yahay Khaby to number 1. Waqti aan muuqaalkan codkiisa duubayo, Charli waxay leedahay 141.6 milyan oo followers, halka Khabina uu marayo 140 milyan dhibic 5. Marka loo eego Social Blade, dabcan Social Blade laga yaabaa isweydiinaysid waa maxay? Social Blade waa website lagu ogaanayo dhaqdhaqaaqa barnaamijyada social media sida TikTok, YouTube, Twitter, Instagram iyo aaladda Twitch lah. 30 maalmood ee la soo dhaafay markaan aaladdaas fiirinayno, Charli waxa ay heshay 1 milyan oo followers, halka Khabina uu helay 2.9 milyan oo followers. Dabcan xawaaraha uu ku socdo waa dareemi Khaby. Farqiga labadooda u dhexeeya ayaa ku tusinaya in uu Khaby Lame ka geli karo Charli kaalinta koowaad. Inkastoo ay u egtahay in Khaby uu dhowaan dhaafi karo Charli, haddana waxaa suurtagal ah in taageerayaashu ay bilaabaan olole ah in qofba qofka uu jecel yahay ama favorite-kiisa uu yahay in uu follow gareeyo. Xitaa haddii aanu marka hore xataa follow gareynin, hadda ayuu follow gareynayaa. Maxaa yeelay waxaa socda challenge ah in qof waliba kaalinta koowaad uu la rabo qofka uu taageero, iyadoo aan loo eegin cidda ku jirta booska ugu sareysa. Waxay u muuqataa in Khaby iyo Charli laftooda ay yihiin kuwa talent leh. Taageerayaashu waxay aad ugu faraxsanaayeen in ay arkaan in labada TikTokers ee ugu followerska badan caalamka ay weji ahaan u kulmeen bishii Febraayo. Dabcan muuqaalka inta aan ku ekeenaynaa Khaby Lame isagoo dhammaystiran qisadiisa. Muuqaal soo socda oo hadli doona insha Allah. Dabcan wiilkani waa aad baan u taageeraa, qiso kasta wuxuu leeyahay oo aad iyo aad u cajiib ah. Marka dadkii wuxuu ka mid yahay corona ka faa'iideystay. Dabcan corona waan ognahay in dad badan uu saameeyay, shaqaale badan oo shaqadoodii laga buriyay, laakiin asi waa uu ku faa'iiday. Insha Allah qisada soo socota